السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب وإذن سلامي أنا ومستر حلقان عبد العالم. سيدا إذن قد وضع جيدان ومانت وحيت هاي مالين أو فرحة أو جمعة مالين أو فرحة أو أي تهاي إيدا مالين إيدا مسلمين تدمان ووضع فرحسينيين ومالين وينه مانتا وحان ورئيسي عن قصو قادني هويو المهدا qaabkii ayada oo qarashku ka galay ama sida ayada oo ilmaheeda u faraxsiisay aan rabnaa inaan anaga aan wareysiga gaaban inaan ku soo qaadno kuwa kalena way jiraan oo maanta iida ah sida u faraxsan yihiin farahdooda in anaga wareysi inaan ku soo qaadno maamadaasna waxa way marka maamo Iisho Ibrahim Xasan oo ku nool marka harada qaxootiga Hagarbeera sida ilmaheeda oo ayada ay u iistay aan rabaa inaan wareysi gaaban inaan ka qaado Iisho عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيادة أوكي مانتو ومالين فرحة وأنتم كمان ولا فرحتني هاي سيدي كلها هاي فرحة مانتا ما فرحتني هاي فرحة هذا سنتي لعبت هاي مانتا. فرحة ما شاء الله. هذه المية وفرحة أنا كده فرحتني هاي. وما سنتي ما دام أديك هواي ونقصنا تاي المها هذا أكبر شيء maxay kula tahay gabadhan horto adiga hoostaada fadhiso yaa dhalay marka imisa adiga ayadana waan u jeedaa inaad waa faraxsiisay maxay kula tahay ayada waa farxadeed ilaa intee adiga adiga qarash kugu galay ayada أخر كل يوم يشام بقول شرينا خرج من قرية وكذا كذا بيجي قرية وكذا كذا عليا وهي الحمد لله رب العالمين وتفرح هذا إحنا كنا جدي تعيادي بقولنا وكذا أصلا في أنا فرحت عمرنا مركي وفرحت عمرنا وهي أصلنا أوكي ما شاء الله مام إيشو marka maadaama horto aan soo soomneen soddon beri aan soo soomnay ilmahaada kuli dhargiid ma wada gaday imisa gabdhood aad dhashay imisa wiilana aad dhashay waxaan haystaa waa afar gabdhood aan haystaa afarta gabdhood waan ku farxiyay dii ugu yar hadda waxay igu gashay gabadha ugu yar oo hadda ayayda ku hay waxay igu gashay $4,500 waay si kala ugu weeyna waxay ku xigna waray hadda garabkayda taagana waxay ugu gashay $7,000 gabadhan horta inta ay taagantahay waa gabadha la san filay ana dharay gabadhayda waay ana dharay hadda ilmaha ugu yar gabadhan waa gabadha ugu yar oo macnaha inta ku yar tahay waay marka magaceeda hoogo yar oo dhammaan soo baasi kartaa magaceeda oo magac dheer waxa la dhahaa magaceeda u weyn waxa la dhahaa Batuulo Ismaaciil Maxamed Abduu jaanisteeda farfiiso Ismaaciil way hadana ما شاء الله dadweynaha oo ay ku taabanayaan maxaad adiga ugu baaqi lahayd maadaama ilmahaada aad waa faraxsiisay maantana ay tahay maalin iid weyn ah oo farxad ah maxaad ugu baaqi lahayd dadweynaha oo ay ku taabanayaan markasta ugu baaqi dadweynaha maxaa ka mid ah sharafka oo dadweynaha meel kasta joogaan oo muslimiina sharafka iyo wanaaga oo ugu tiraayo dadweynaha ku tirsanayeen intaas ugu baaqi dadweynaha oo qofkii meel joogo inay ku jiraan oo farxad maanta ilmahayna ku sameeyay dadweynaha meesha jooga oo meel kasta intay joogaan inay ku jiraan waa maasantiin maadaama horta idinka daawateen maamadii garabkayga taagan waa maamo Iisho Ibrahim Xasan gabadheedana waxa way dhisya idinka adu qasheen waxa way Batuulo Ismaaciil adu la yiraahdo tanna waa awaawadeeda waa Iisho la yiraahdo ayadana maanta waa wararkeena halaas buu ku saabsanaa si adinka aad ogtiin waayo waalidkii tahay ilmahaada inaad faraxsiiso maalin waa farxad waaye in idinkana oo macnaha unugaada hadii faraxsan yahay adigna waa faraxsan tahay marka insha Allah mar kale iyo maalin kalena waa isku wada imaan doona wararkeena xagga ayuu ku saabsan yahay